marka waxaa imaanay zaman ilmaha caloosh hooyadood ayagoo ku jiraan la xadaay marka wax la yaab leh. kusoo dhawaada channelkayga waa Muna Corner. waxaan idin rajeynayaa insha Allah khayr iyo caafimaad meel walba aad joogtaan. haddaa tahay awal mar oo channelkeeda soo gasha markii ugu horeeyay haddaa tahay subscribe taabo like iyo share dheh. channelkeena wuxuu ku saabsan yahay laba mowduuc miisaan dhimis iyo maxay qisooyin dhacdooyin run ah. marka labadaas mowduuc hadaa qiimeysid waxaad ka helaysaa channelka. marka waxaan rajeynayaa insha Allah inaad ka heshiin mowduuca. asxaabtan ugu xiran waxaa leeyahay waad mahadsantihiin kommentayaashiina quruxda badan oo dhiirigelinta leh like iyo share-kana noo badiya siduu channelka ama videoga dad badan u gaaro. marka insha Allah sheekadeena maanta waxay ku saabsan tahay gabar la dhahaayo Bobby Joe. Bobby Joe waxaa waaye gabar oo 23 jir bay ahayd waxay deganeed Mareykanka. ayada iyo maxay ahayd wiil baa isjeclaayeen. wiilka waxaa la dhahaayo Zed wiilkaas yaraanteeda isjeclaayeen way isguursadeen. markay isguursadeen kadib waxay uur bay qaaday Bobby Joe. Bobby Joe uur markay qaaday aad bay ugu farxeen. maxaa jiray laba qof isjecel yaraantooda isjeclaayeen haddana markay isguursadeen ilaahay wuxuu u kasay inay maxay ahayd uur ay qaado. marka aad bay ugu faraxsanaayeen. Bobby Joe ninkeeda meel buu ka shaqeynayay magaalada dhexdeeda. Bobby Joe maxay ahayd ayaan bay ka shaqeyn jirtay factory ama maxay shirkad masnac bay ka shaqeyn jirtay. kadib uu iska daysay markay soo cuslaatay marka gurigeed joogi jirtay. waxay jeclaan jirtay Bobby Joe eeyaasha yaryarka nooc oo go-an sawirkiisa idin soo dhigi doona insha Allah. noocaas aad uga heli jirtay. marka way xanaaneyn jirtay way rabeyn jirtay gurigay ku haysan jirtay. marka way baratay siday markay dhalaan siday ula macaamil tanto siday maxay u koriso. markay soo guriga ay soo dhigatay maxay eeygi u joogay baa maxay ilmo kala yaryar u dhalay. marka waxay yeeli jirtay eeyaashaas yaryarka ama puppies ay dhahaan af Ingiriisi ku dhahaan way gadi jirtay. marka waxay ka dhigan jireen income camal. maxaa jiray qofkan qof uur leh waaye gurigeena joogtaa ma shaqeyso marka waxay u baahnaayeen income. marka eeyaashaas yaryarka ay gadaysay qofkii u baahdo maxay online bay soo dhigi jirtay dadka la soo xiriiri jireen. marka way imaan jireen way gadan jireen. sidoo kale waxay jecleed chat-ka iyo maxay ama muntada ama forum waxa lagu dhahaa Ingiriis. waa website oo maxay ahayd oo khaas u ah eeyaasha noocaan ah maxay ahayd ay jeclaan jirtay. website loogu talagalay dadka eeyaashaas jecel noocaas specific ahaan noocaan khaas ahaan dadka jeclaan jiray maxay ahayd meeshaas ugu imaadaan. marka way ku sheekaystaan sawirada waxay soo dhigayaan maxay ahayd eeyaasha yaryarka u dhashay. gabadhaana waxay ka heli jirtay yani dad oo customers oo ka gadanayo eeyaashan yaryarka. marka sidoo kale forumka ama muntadaga waxay soo dhigi jirtay sawiradeeda ayadoo faraxsan uur baa leeyahay eeyaashan yarka haysta. marka dad baa jira social media-da live-kooda soo dhiga iyo maxay khusuusiyaadkooda wax fiicanna ma aha runtii. marka waan arki doontiin waxaa saas u leeyahay. marka meeshaas ayadoo ku jirto naag baa maxay ahayd friend ila noqotay la dhahayo Lisa Montgomery. Lisa Montgomery waxaa waaye ayadana website-ka ama forumka ku jirtaa. dadka waxay ku dhahday uur baa leeyahay forumka laftarkiisa ama muntadaga waxay ku dhihi jirtay uur baa leeyahay. sidoo kale waxay jecleed eeyaashaas yaryarka. marka naagtan gabadhaani aragtay oo maxay ahayd eeyaashaas yaryarka ay jecel marka friend bay la noqotay. marka isbartay waxay dhahday aniga maxay ahayd eeyaashaas yaryarka ka hela maxay ahayd sidoo kale uurna waa leeyahay. tana way ku faraxday anigana saas uur leeyahay eeyaashaas yaryarkana waa ka hela. marka yani wax saaxiibtinimo camal ah dhexdooda dhexmara. marka ayagoo saas iska forumka ku jirto Bobby waxaa la soo xiriirtay naag oo maxay ahayd la dhahaayo Darlene Fisher naag la dhahaayo la soo contact gareysay. Darlene Fisher intaana ka hadlin usoo noqonay Lisa Montgomery. Lisa Montgomery Lisa Montgomery waxaa waaye islaan maxay ahayd 36 jira oo maxay ahayd ku noolad ayadana maxay ahayd Mareykanka laakiin magaalo ka fog xoogaa Bobby Joe meesha ku nooshahay. magaaladaas ay ku nooleed waxay ahayd hooyo oo 4 cunug haysata. marka hooyadaas 4 cunug haysata waxna uurna ma lahayn been bay u sheegaysay.
marka Lisa Montgomery taariikhdeeda xoogaa hadaa gadaal ugu noqono waxay ahayd yaraanteeda hooyadeeda soo korsatay aabaheeda ma lama sheegin qasooyinka ama maxay ahayd website-yada lagama sheegin aabaheeda lagama faaleyn laakiin hooyadeeda soo korsatay marka waxay soo korsatay waxaana guriga joogay ninka hooyadeeda qabo ama step fatherkeeda joogay step fatherkeeda nin xun buu ahaa wuxuu yeeli jiray gabadhan uu kufsan jiray si xun ugula dhaqmi jiray marka ay hooyada ogaatay hooyo ahaan maxaa laga rabay inaa gabadhaada difaacdid oo garab istaagtid hooyadan Lisa hooyadeed waxay yeeshay intay soo qabatay xabad bay madaxa ka saartay waxay tiri nayaa wir qof u sheeg gabadheeda ku tiri wir qof u sheeg ama qof la wadaag hadalkaas marka si xun bay ku soo nooleed waa la dili jiray waa la kufsan jiray waa la xumeyn jiray hooyadeedan qof fiican ma ahayn marka qofka saas oo kale waxay sameysay nolosha kaliya ay haysay waxay ahayd gurigaas ay ku jirto marka waxay sameysay nin bay guursatay marka nin markay guursatay sida ooga cararto noloshan xunta ay ku nooshahay ninkii markay guursatay 4 cunug bay u dhashay markay isla joogeen ninkin asaga mid fiican uma noqon ayadana maxay ahayd way isfahmi waayeen way kala tageen markay kala tageen intaysa kala tagin naagtan waxa lagu sameeyay cunugeeda ugu dambeeyay dhalaysay procedure ama amaliyad qaliin lagu sameeyay ee dhalmada joojisa xajirada cunuga u dambeeyay xoogaa way ku rafaaday ku dhigtootay marka procedure baa lagu sameeyay dhaqaatiirta cunugta gabadhan naagtan inay mar dambe cunug ay dhalo marka ninkii markay kala tageen ee xoogaa joogtay nin kale bay guursatay nin kale markay is arkeen ee isfahmeen way guursatay ninkan asagana maxay ahayd wuxuu haystay 3 cunug buu haystay Kevin baa la haayay Kevin Montgomery 3 cunug buu haystay ayadana 4 cunug bay haystay 7 cunug hal guri lagu wada haayay marka mar walbaba waxay dhahaysay uur baa la yahay mar walba waxay iska dhigaysay qof uur leh marka qoftan uur ma qaadi karto maxay ahayd dhalmadii maxay ahayd yani amaliyadii lagu sameeyay dhalma uur ma qaadi karayso marka laakiin mar walba uur bay qaadaysay ay iska dhigaysay naag uur leh ninkan rabtay inuu maxay ahayd si uu يعني عنق أسرع ودشوا معها أفرتيدان صدق حديثنا معها عنق أسرع إن كان ودشوا بيرفته مرك مرة والباب حي التمثيليات بأسمينه أورب عليها مرك حوجا أورك للصوت جوجا وحدي جرتي وإيجا صوت الماء صانع عليه مرك لو تجر عمل مرك ساس هذا مرك صدحات ساس له يسوى مرك إسبرنا عيان قبلان بابي جو إسكو برنا عيان ويب سايت marka u soo noqono website-kii Bobby Joe waxa la soo xiriirtay naag la dhahayo Darlene Fisher naagtaas waxay ku tiri aniga waxa rabaa eeyaashaas yaryarka aad gadaysid marka Darlene qofkan yani xoogaa raadinayo income waxay ku dhahday okay aniga meeshaas aad deganahay waad iigu imaan kartaa marka qalad weyn yani qofkan يعني أنا يعني قف هذا الأقولين إن هذه أونلاين كلية اسكو برتين أنا أقول هذه إيو الموجودة يعني أو كلية أتها يعني قلد وين وعرفتي يعني أو يعني لا سمين كرم بقى مركا ويقول هذا إيه مو ويقتل معتي مركا يقتل معتي ماشي جوري ده بابي جو معلنتي شاكرا محيد عادل لبضكون ديسمبر 18 كيدي معلنتي أهد بابي جو تلفون بهويد كل شيء كيسان جرتي قف واحد آد هويد وحريرسة dadka way kala yihiin dada ehelkooda aad u xiriir dada ehelkooda xiriir marka gabadhan ehelkeed aad bay u xiriirin jirtay marka hooyadeedii taleefanka kula sheekaysanaysa ballana isla lahayn in meel isla aadaan marka 8 saac bar ballantii naagtii u imaatay albaabka loo soo garaac marka waxay ku tiri hooyo naagtii ay imaatay oo ayaasha rabtay marka taleefankii way dhigtay markay taleefanka dhigtay albaabkii ka furtay naagtan Darlene Fisher aleedaha هي ترى سوقل مركز ساس وجيسة ربط إني تستو إياش يريركا ناكتان وحي وذاتي بورصة ذا وحي وذاتي حرق gabadhan qoorta oo la qabatay gabadhiisaan markii u dhigtay dabcan iyaas yarka inay maxay tusto xarig bay soo qaaday qoorta bay uga xeejisay ilaa ay nafta uga baxday markay nafta ay ka baxday u malays inay nafta ka baxday boorsadeeda soo jiiday maxaa ku jira isleedihiin boorsada waxaa ku jiro midi iyo alaab oo maxay ahayd naagaha lagu dhaliyo qofkan Darlene Fisher waa Lisa Montgomery qof kale ma aha Lisa Montgomery oo qof kale iskaga soo dhigtay gabadhan marka Lisa Montgomery gabadhan markay u imaatay ee ceejo ku dhufatay ee isdhaxday way dhimatay boorsadeeda waxay ku wadatay qalab oo naagaha lagu dhaliyo intaysa u imaan gabadhan waxa ay soo fiirsatay fiidiyoyaal sida habka C-sectionka ama qalliinka naagaha lagu dhaliyo marka intaasoo fiideo bay soo fiirsatay midi iyo alaab maxay ahayd lagu dhaliyo ilmaha bay soo qaadatay
gabadhii meesha jiifto oo maxay ahayd caloosha maxay cunugii ku jira 8 biloodna waa gabadhan Bobby Jo soo qaadatay mididii caloosha ka marisay markii midida caloosha uga marisay dabcan dadka oo maxay qalliin ku soo dhalawaad yani way yaqaanaan caloosha inta marka dhagsiisid cunug isla markii ma soo baxay intaasoo layer intaasoo dabaqood maxay jiro intaas mididii si fiican u marinaysay sida cunuga yarka oo la soo baxdo markay mididii si fiican u marisay oo cunugii u soo baxay cunugii soo bixisay waxay ka jartay xabli surigii ka jartay maray ku duuduubatay way qaadatay way la tagtay waxaa maqli jiray markii la dhaho ayadoo la dhahaayo intee ku geeya ilmaha yarka markay wax intee ku geeya caloosheed ma kugu celiya hadda waxaa joognaa samir ilmaha caloosha hooyadood lagala baxaayo laga xadaayo yani wax oo qeyr macquul ah waa marka cunugii duuduubatay way baxday qoftaan marka Bobby Jo hooyadeeday la balansaneed hooyadii ay imaatay albaabka markay soo furtay waxay aragtay gabadheedii dhulka xooran oo dhiig yani dhiigeeda meel kasta ku yaala iyo caloosheedii oo kala faydan marka habartii way ogay qofkaan inay uur leedahay marka waxay u maleysay caloosha inay qarxatay marka isla markii 911 bay u dirtay telefoon waxay dhahday soo gaara gabadheedii maxay ahayd oo xaamil ahayd caloosha ka qarxatay meeshaan ay jiiftaa ilaahay amarkiis markaas naf yar ku jirtay gabadha يعني maxay ahayd naf yar ku jirtay markii ka soo gaareen ambulance-kii way badbaadin kari waayeen runtii xajir qof waa la way ceeysay markii ceeysay kadib intaasoo midi iyo waxaas ay ku qalqashay xajir qofka markii la qalaayo anesthesia lagu suubiyaa antibiotic waxaas la maxay ahayd la tacaala qoftaan caloosha bay midi ka marisay marka ambulance markay imaadeen waxay arkeen qoftaan uur leedahay la sheegaya cunugna meesha kuma jiro caloosheedana waxay u qalan tahay hab oo sax ah يعني qof inuu maxay way muuqataa calooshi in la maxay si fiican loo qalin qof oo maxay specialist ama dhakhtar ah inuu qalay cunugii uu maqan yahay gabadhan waxa la arkay dhuunteeda xarigi in lagu xarigi ay ku dishay marka meeshan waxa ka soo baxday laba jariimo qatl iyo ikhtitaaf dil iyo maxay hado dafid cunug marka isla markii askartii bay waceen askartii markay waceen waa la imaaday waxa la arkay qofkaan saan loo galay markay imaadeen askartii meeshaan la joogaan qoftaan maxay ahayd meedkeedii kor taagan yihiin walaashay Lisa waa baxday telefoon ninkeeda u dirsatay waxay ku dhahday aniga waxa joogaa meel hebel aad joogaa foola ay qabatay waa dhalay ay ku tiri marka soo gaaray tiri cunugii ay la qaadiday marka ninkeedii wuu imaaday saamarkii waxay u sheegtay inay uur leedahay wuxuuna u sadaq waay maxaa jiray intaasoo maxay ahayd cunuga haysataa marka uu sadaqay marka uu imaaday uu waday suuqii ay meesha ay dhahaysay meel naaga oo maxay shop naaga laga ka shaqeeyaan ku dhalay tiri marka halkaas laga waday uu imaaday ninkeedii uu waday gurigii geeyay markii saas ay dhacday habartii iyo maxay ahayd askartii gurigii gabadhii joogaan waa la garan waayay cunugan yarka la dafay waxa laga yaqaanaa Mareykanka wax la dhahayo Amber Alert waa code ama baafin loogu talagalay ilmaha yar yar kala dafo marka cunug yar markii la dafo code-kaas ama baafintaas la sii daayaa markii la sii daayo sidii dhaqso ahaan cunugan loo helo maxaa jiray 24 saac ugu horeysa ama maalinta ugu horeysa oo dafida waa maalinta ugu fursad badan tahay in cunuga la helo maalmaha ka sii dambe xoogaa rajada way sii yaraanaysaa marka Amber Alert bay sii daayeen laakiin askartii mushkilad weyn baa haysata mushkilada waxay tahay cunugan dhashay wuxuu ahaa lama yaqaan wiil baa ma gabar baa lama yaqaan suu egyahay lama yaqaan xataa markii naagtan ay dhalisay ma noola mise wuu dhintay ama waxba ku dhacay waxaasoo dhan macluumaad ma haystaan marka waxay yeeleen Amber Alert bay sii daayeen baafintii baa TV-ga iyo magaalada iyo meel walba lagu sii daayay waxaa laga soo saaray sawirka gabadha maxay ahayd hooyada la dhigay cunuga sawirka ma haayaan waxbana kama haayaan macluumaadka kama haayaan waxa la yiri maama qoftaan maxay ahayd وبالهاد عنقيدي باسان إنسان والد دلي مركا قفكي أركو فافاهين نمبر كاس هنا لسو أحرير مركا أمبر أليرت هذا كهرنا إن كهلا لنا يا فيديو أو كرايم أكهلا قبل ديرت أو محن هذا أصحابي الدلايين مركا أمبر أليرت واحد لغية قانوا المها يرد أمريكا للضفة وكود الاستعماره مركا baafintii markii ay socotay oo maxay ahayd TV-ga iyo magaalada meel walba ay gaartay
waxaa aragtay baafinta gabar oo maxay ahaado Bobby Joe iyo Lisa Montgomery kula jirtay showroomka ama muntada website-ka kula jirtay baa aragtay baafintii waxay aragtay gabadhan sawirkeedii marka sawirkeedii way soo dhigi jirtay website-ka marka way taqaanaa marka magaceedana way taqaanay markay aragtay aad bay u naxday markay naxday way fakartay yani qoftan waa la dili cunugeedina waa la dafay marka website-kii bay u noqotay website-kii markay u noqotay maxay samaysay shaadkii history shaadkii bay u noqotay website-ka muntada haddaa idinkaga sheekeeya yani maxay dadkii muntada yaqaano zamaana isticmaali jirnay laakiin hadda ma aqaan dad haddii weli isticmaalaan laakiin waxaa waaye private room ma aha waa meel oo maxay ahayd oo qoraalkaaga dadka dhan soo arkaayo oo showroomka ama muntada ku jiro marka website-kii u noqotay history shaad bay u socotay si u socotay u raadinaysay waxay heshay gabadhan Bobby Joe ayadoo la hadlayso gabar naag la dhahayo Fisher for Kids username oo la dhahayo Fisher for Kids marka username la yaab leh buu ahaa oo maxay ahayd oo yani oo naagta kama helin marka waxay aragtay gabadhan inay la hadashay naagtaas oo ballan isla lahaayeen marka waxay yeeshay askartii bay wacday numberkii oo baafinta ku yaalay wacday waxay ku dhahday aniga website-kaas kula jira maxay ahayd gabadhii dhimatay waxaa u dambeysay naag la soo hadashay oo la dhahayo Darlene Fisher oo maxay ahayd username-kaas leh oo maxay ahayd maalintaas ballan lahaayeen marka askartii FBI-gi waxay sameeyeen askar kaliya ma aha FBI lagu soo diray FBI-ga way ka xoog badan tahay wayna ka culus tahay askarta caadiga waxay imaadeen gabadhii gurigeedii waxay ka raadiyeen laptopkeedii computerkii gabadha bay maxay ahayd ugu noqdeen waxaa la fiiriyay history-gii iyo waxyaabihii maxay ahayd ay website-ka ay ku qorqoraysay marka waxaa la arkay magacan username-kan Darlene Fisher Fisher for Kids waa username-ka markii magacii loo noqdayna waxaa la arkay Darlene Fisher magaaladaas ku degan oo maxay macluumaad meesha ku qortay website-ka marka askartii markay raadiyeen wax qof magacaas Darlene Fisher la dhahaa malaha macluumaadkaas qof meeshaas magaaladaas deganba maba jiro marka magaalada deganeed waxay ahayd Kansas markay sheegtay meelahaas yani macluumaadkaas laga waayay waa qof fake marka maxaa dhacday waxay sameeyeen IP-gi bay trace bay ku sameeyeen waxaa la keenay qof oo maxay technician waxaa la fiiriyay IP-gi maxay meeshuu ka imaaday IP-gi markii trace lagu sameeyay la raacay IP-ga waxaa la cinwaan oo maxay Kansas ku yaalo oo degan tahay naag la dhahayo Lisa Montgomery iyo nin la dhahayo Kevin Montgomery marka askartii isla markii way baxeen markay baxeen intaysan baxeen waxaa jirtay horta naag dariska baa waxay ku tiri dariska markay weydiiyeen wax ma ka ogtiin waxaas naag baa dariska waxay u sheegtay waxaa aragnay maalintii ahayd la dilayay 8 saac bar duhurkii baabuur oo guduudan oo xoogaa old oo qadiim baa meesha yaalay irida Bobby Joe irideeda yaalay marka weligeena kumaana arkin ay tiri baabuurkaas marka askartii markay baxeen ay raadinayeen magaaladii ugu tageen naagtii Lisa Montgomery baabuurkii meesha yaala oo guduudan oo qadiimka ah ay arkeen markay dariishada ka arkeen dadkan ayagoo fadhiyaan naagtan fadhido cunug yar gacanta ku haysato iyo ninkeeda ag fadhido marka iridiya lagu garaacay markii iridii lagu garaacay waxaa la dhahay ma tihiin Lisa Montgomery ma tahay markaas ku tiri ha marka waxaa la dhahay cunugan adaa dhalay markaas tiri ha ana cunuga ana dhalay marka waxaa la dhahay goorma dhashay qisadii u sheegtay waxay tiri waxa aaday shopping marka aaday waxay qabatay fool markay fool u qabatay meel naagaha shop naageed oo Tobika ku yaala maxay ahayd galay ku dhalay kadib ninkeyga u yeertay asay waday marka askartii isla markii way waceen meeshii ay sheegaysay markii la wacay waxaa la dhahay ma taqaanin qof la dhahay Lisa Montgomery oo meesha ku dhashay cunug marka waxay dhaheen maya nama soo arkin maana arkin namana soo marin qof saasa marka askartii markay ku sameeyeen pressure isla markii ayada way qiratay breakdown ba ku dhacay way qiratay markay qiratay waxay tiri saan iyo saan aan sameeyay aniga baxay aniga waa cunuga ana soo qaaday ana u tagay gabadhaas oo saas yeelay marka Lisa maxay hada cunug yarka gabar ahayd waa laga soo waday magacii u baxsatay waa laga soo waday ayadiina waa la qabtay markii la qabtay ninkeedii dabcan fajac ku dhacday naagtan uu isdahay intaas uur ku leedahay inkastoo maxay hada aniga maxay hada lagama hadlin online ahaan sheekada resource ka keenay lagama hadlin caloosheeda iyo waxaas haduu maxay hada
يعني maxay ma muuqan qof uur lahayn iyo qof uur leh isku mid ma aha marka research markaa sameeyay caloosheeda waxaas ninka lagama hadlin laakiin fajaca ku dhacda maxaa jirtay qoftaan wuxuu isdhahay intaas uurka cunug qadi leeyahay ay waday laakiin maxay hada waatay been noqotay midda kale waxaa jirtay ninkan ninkii hore oo maxay ahayd afarta cunug ka dhalay maxkamad buu saaray oo maxay ahayd intay waxaan sameeyeen maxkamad buu saaray oo maxay ahayd ilmaha buu kula dirilayay inuu maxay ahayd ilmaha ayada uu ka qaato marka ayada waxa sababta ugu weyneed maxkamadda markuu saaray asagana wuxuu sheegay ninkeedii hore inay been sheegi jirtay oo uur been ay sheegi jirtay marka maxkamadda markii la saaray cunug ilmihii maxay ahayd waxa ka dacwada ka dhaxaysay ninkan markay ay guursatay kadib oo maxay ahayd mar walba uur u sheegaysay markii ugu dambeysay cunug bay rabtay marka gabadhaan ay heshay online ka baratay cunugeedii ay soo isdhahday cunugtan naagtan cunugeeda caloosheeda ka bax marka maxay plankeeda saas buu ahaa naagtan waa la qaaday maxkamad baa la saaray cunugii yarka ahaa ahalkiisa loo celiyay aabihii maxay ahayd iyadii marka fajac weyn ku noqotay ninkii Bobby Joe ninkeedii laakiin alxamdulillah cunugtii yarta u soo baaqatay marka aad ay ugu farxeen wax la yaab leh ahayd mucjisadeed cunugtan yarta 8 bilood bay ahayd caloosha sida loo dhaliyay maxay nolol soo ku heshay marka mucjisay ahayd naagtan waxaa la saaray maxkamad markii la saaray waxaa lagu xukumay dil lagu xukumay Mareykanka badanaa dil lagu xukumo dad laakiin naagtan dil lagu xukumay marka waxay sugaysaa wali intay maxay dilka waqtiga la dil lahaa bay sugaysaa Lisa Montgomery sheekadeeda yani sheeko la yaab leh waa runtii weligeed ima soo marin qof maxay isbarataan oo online isku barateen يعني إن كستو أي سكجسو دقن صاحب تدي هراء لكن إني بحض قف أي كو قصيص أو قف كاسنا علوش يسعون بكجر إني كحده يعني وحلا يابله هواي وحاله استفيدة قصة عن كودي محا هذا أنا ضد اللي آمنين أونلاين سيبك ضد كلا جبرته وحلا آمنة معها runtii ma taqaanid qofkan online hada isku barateen marka qof hada online ama wiil hada ama gabar hada qof online hada isku baratid meel caana isku fiirs isku taga isku meeshaas kula fiirs fariista isku la hadla isku la sheekaysta isku barta midda kale ma aqaan runtii gabadhan Bobby Joe ayadana gabadhan iska soo gelisay aaminka dadka iyo la iska siinay waa wax aad u qalad badan marka waxaan rajaynayaa insha Allah maanta sheekada inaa ka hesheen asxaabtina like iyo share la wadaaga qisad aad u xanuun badan waaye waxaan rajaynayaa qisooyinkan iyo qisooyinka soo socdana aad inaa uga heshaan qayr idin rajaynaa meel walba aad joogtaan assalaamu calaykum